الحمد لله هرت إلهي بقى محل أنا حنونك وحلا ولا مدة سجال سنة حلي قال لي جهلا قرابة إذا قرنوا وجاين قرنوا ما وجاين هل جبران كرسان شري مركز دمل ننكي قبل شري هدو قبي مركز دمل نسق السوق على حالة دي سي أنا حنونك وصار دعاي مركز دمل كل ما سكنوا ولا شري قبل إذا كرسان شري عن عقبة يقول كل ما هل كي كنا ولا شري ديجان كنا ولا مركز حنا السري حديث كوحنا حسوستني بيقول صلى الله عليه وسلم ويري ماشي هديك وقعد كاتوا اللي جاها شراء واسكسو هاجر بدلا ما اسكسو قلعي قبل هذا وقوي قلبيت باوند شيء waxay ahaayeen markii ani dadkii horta garabkay ka dhawaa oon waayay ana xanuunkiina nool ee dadka iga celin lahaa waalidiinteedii qaaran waayay aabii baa soo haray aabihiina wuxuu gaaray dadkii oo dhan ii sheego marka waxa noqday shimbir baal ka go'ay waan kaliya waxaan u habran jiray gabadheeda yar caqabada ani dibta igu dhacday inayna ku dhicin maadaama gabadh tahay oo iyada seef gareeyo oo iska sito dawadeedana qaato waxay caqabadii waxa kamid ahaa walaashay guri in la iga kareyn waayo guriga hadii la iga kareeyo xitaa anoon wali guriga ku guurin baa lacagtii horumarinta la soo celiyay igu tirislaantii dad baa iga imanay Jabuuti hooyo wata lacagtaadi hatta qofka igu dhawaa markii intuu yimid igu yiri intuu difaaci la asoo guri weyn ku jira buu igu yiri anigu waka waxba kuma qaban karo dadkii oo dhaaday kugu sheekaysanayaan xaafadana ma wada deganaan karnayna kala qari markii waan ku aasaday intaan maghribaan tukaday ilaahay bariyay inaan ka haajiro meesha waan ka soo haajiray ilaahay waan ku guuleystay waxay soo dhaweeyay dadkeena reer Puntland alxamdulillah rabbil caalamiin guul baan gaaray dadkayga u istaagay caafimaadka wax ka bartay FTC baan ka shaqeeyaa courseska sameeyaa tastiga sameeyaa dadkayga u istaagay ku kasta meeshiisaan ku ogahay inta ani awoodayda anu cidna lacag ma siiyo laakiin xanuunka maadaama ugu waaya aragsana 9 sano dawada qaadanay waan soo dhaweeyaa walaalahayga dhalinyartan waxaan ku booriyaa intayna iskuursan inay isbaaraan waliba 2 jeer oo 3 bilood u dhaxayso hadda gabadheedii berigii maanta waa dhowr 10 jir hadda dad baa igu dhaafay media la hor istaagtaa Khadiija gabadhaada ayaa guursanaya gabadheeda waxaan ku yiraahdaa guurka Allah waxa laakiin waxay fiican baan ku yiraahdaa laba reer oo safe noqda oo waxay ugu muhiim ah laba reer oo safe noqdo walaalaha inaan badbaadiyo oon u sheego xanuunka dad baan ogeyn dad baan xaruntaba aqoon hataa xaruntu waxay ku taala isbitaalka weyn referaalka garoowe walaalaha anay nii jooga qof dhalinyar aan ahay iga cabsoonina yimaada la isbaara xaaladina ogaada markii aad dadka xaaladahooda ogaanaysa Khadiija aad ka warqabaysid dhibaatooyinka ay dadku kaaga sheekeeyaan ay kugu dhahan waan la kulanaa maxaa kamid ah dhibaatooyinka dadku markii qofka xanuunka la nool caqabadaha ugu daran ay la kulmaan waa qofkii shaqo laga soo ceeriyo nololiisa asaasiga oo dhanba ku waaya in shaqo laga soo ceeriyo in ubadkiisa iskuulka laga soo saaro in guriga lagu shiido haduu leeyahay oo leeyahay xaafada ka guuro inuu suuqiba ka adeegan kar waayo in xataa meeshu biyaha ka cabay loo diiday ana kamida meeshu biyaha laga cabay in la ii diiday hadda ka hor alxamdulillah maanta waa fiicanahay guri baan leeyahay dadka kuma oranayaan guri iyo hanti baan leeyahay waan ka maarmay waan u baahanahay walaalahay iyaguna way ii baahayn laakiin waxa ugu baaqaya inay walaalahay is dhowraan oo dhowrsanaado waliba jiilka cusub dadka hadda soo baxaya Khadiija marka aad shaqeynaysid sidoo kale ay ku imaanayaan wali dadkii inaad ka dhaadhiciso inay dawooyinka qaataan sidee bay dadku u aqbalaan marka aad ka dhaadhicinayso inay dawooyinka qaataan iyo inay isbaaraanba wallahi muhiimada way igu farxaan dad badan bay igu farxaa qof markii ooyay counselorska uu sameeyo wada sheekaysan yeelanay dhaqaatiirtu markay qaabilaan bay ku raadaan gabadhan waa sidaas oo ila nooshahay wata shaar cad bay xiranta shaqaale caafimaad weeyaan qaar baa yiraahdo waxaan rabaa sida Khadiija kale inaan ahaado noloshiisa iska sii wataa inta badan way aaminaan noloshooda iska sii wataan shaqooyinkooda iska wataan qof kasta dhalinyarana waxaan ku booriyaa inuu dawadiisa qaato sideeda kala noqdo waayo faa'iido badan buu ka helayaa faraskii oo ka xidhmaya ilmo fayow buu dhalayaa dadkii buu ekaanaya hawlihiisa shaqo halkii ka wadanaya haduu wariyaha haduu askari aha qofna meeshiisii yaa waxaan leeyahay walaalahayaga naga waaweyn khibrada kale naga waaweyn dadka wajahadu noqotaan isqarinayna waxaan baa ku dirayaa afka Soomaaliga meel kasta joogaan ay soo saaraan walaalahooda say taargad ugu noqdaan sideedoo kala soo baxaan dadkooga ha u qareemaan meel kastana ha galaan dadkaana hal ogaadaan leh waa dad shilixsan dhinac way liitaan oo waa reer tamaad dad bulshada waa taargad ka dhigata
oo waxba ma haystaan hadday shaqaysanayaan kama dhex shaqaysan karaan ciyaal xitaa wax ma baran karaan waxay noqdaan waxay ku jiraan xabsi korka ka furan dadkaas weli ma aragtay intaad dadaalkan wadeen cid idin caawisa ama dareenta in dadkan ay u baahan yihiin in la garab istaago way jiraan daladaha ma badna dalada Puntland way jirtaa dalad Puntland ka shaqaysa laakiin ma badna khadijay nolosha kale in dadkaas ay nolosha wadaagaan oo iyagu wada noolaadaan bal taasi sidee bay ka dhigantahay way fiicantahay waxaan arkaa mataqaanaa wiil positive haduu yimaado uu yiraahdo xasmali waxaan ka fikiraa wiilkaasi waayo intaan u baahan oo kale u baahan yahay inuu reer dhaqdo inuu wax dhalo inuu shaqaysto noloshiisa caadi u noqoto waxaan u keenay qof dhigiisa oo yadna gabadha baan u keenay dhowr reer baan isku dhisnay sida aniga saygayga Bashiir reero badan baa isku dhisnay imika ilaa 8 gaadhaya reeraha waxaan ku kaftamaa waa reerkaygii meesha kastaan tago oo ka casuumanay magaalo kastaan tago magaalooyinka Soomaalida degto dhan ilaa mustaxiil reeraan ku leeyahay gabdhaha wiilashaydii baa jooga garabkana waxaan ka helay odagayga Bashiir maadaama isagu moraal haya ana xanuunka anu dumar baan ahay waxaan ugu dadka ugu nuglaaday ay dadku i caydsadeen laakiin isagu rag weyn rag dumarka way ka adkaysi badan yihiin midalaad wuxuu igaga fiicnaa dadkooga baa barbar taagnaa oo la saag istaagay aniga laakiin waa la kala cararay hooyada wax saag istaagtay hooyadayna anoo yar bay iga dhimatay maadaama sidii waxaan ka fikiray inantayda sidii aniga ku dhacday inayna maanta gabadheeda ku dhicin gabadha sanadka 15aad bay ku jirtaa waan la sheekaystay waan la saaxiibaa hatta xanuunka ay hayo waan u sheegay markii eed soo gaadhan u sheegay oo igu tirooy iskuul lacag badan igee waxaan ku rooy kuma awoodo aabaha saasaan ugu kala dhacday waan kala tagnay waxaan anaa ku sabad gareeya hooy iskuulkaasaan ku awoodaa saasaan u xanuunsanahay noloshaada intaasaan ku awoodi karaa iskuulkii aan ka soo baxay waa kana dhigo hadda fontri way sanadkan ku guuleystay way ogtahay in xanuunka hadda guriga ay joogtaa waxay inta ku dhiirataa in shaqaale caafimaad noqoto dumarku sidee ugu nugul yihiin dhibaatooyinkaasi marka waxay ugu nugul yihiin inta badan inta burburku dhacay horta sidaad ogtahayba nolosha waxay ku xeeran tahay dumarka ma ogtahay dumarkii hooyadii ninku hadduu xanuunka ku dhacay bayada iskaga taatu aan laga garanayn buu taga laakiin hooyadu waxan bay ku fadhidaa uwaday ku fadhidaa ma ogtahay kaba tagi karto ubadkeygii dib u eegaysaa dhibaatadii oo dhan way saarantay bulshadiina waa taargad bay ka dhiganaysaa toosh baa la daba sitaa ugu dambeyn fariinta aad diraysa maxay tahay fariinta aan diraya waxa weeyaan mid waa mid dadka ayaga masaakiinta positive-ka la nabadgeliyo waayo iyaguna waxay ku kacayaan tacadiyo kale midda labaad waxaan kala fariinta aan diraya waxa weeye waxyaabaha dhaqanka inkastoo soo yaraado sida hore ahayn waxyaabaha dhaqanka gudniin wadareedka iyo waxa cunaha carruurta laga jira hal meel aroortii lagu soo ururiyay waxyaabaha laga tago dhaqamada noocaasa hal ogaada xanuunkan inuu saa ku faafayo